xal looma hayo mashquulka wadooyinka ee caasimadda taas oo sii adkeynaysa horumar kasta oo laga samayn lahaa ku dhaqanka shuruucda wadamarista. tirada shilalka ayaa aad u sii korortay sanadihii u dambeeyay waxaana barbar socda shaqada ciidanka ilaalada wadooyinka oo iyaguna qaba dhaleecayn u gaar ah taas oo la xiriirta waajibaadkooda in aysan si sax ah u gudan. tirada iskuulada lagu barto baabuur kaxaynta oo lagu lamaaniyay cilad bixinta ayaa Muqdisho ku badan iyaga oo magacyo kala duwan wata. dadku inay bartaan qaabka gaadiidka loo kaxeeyo mar waa horumar saacidaad u ah sharciga wadooyinka marna waxa ay sii adkeynaysaa ciriiriga wadooyinka magaalada. Cabdishakuur Maxamed Xasan oo burburkii dawladda Soomaaliya kadib sheegay in uu bilaabay in uu dadka baro qaabka loo wado gaadiidka ayaa sharaxaya wadada loo maro barashada gawaarida. waxaan shaqadan hadda iskoolweeyada ninkii bilaabay dawladdii ka bacdi aniga iyo rag badan oo dhalinyaro hadda meesha joogta ah dugsiyaal badan aan nahay waxaan barnaa sida lagu sheegaba dadka shuruucda wadooyinka lagu maro inkastoo hadda inta badan aysan isticmaalin dadka wata gaadiidka ay sharciga isticmaalaan. anagu waxaan ku dadaalnaa inaan semberi soo noolayno wixii horay u baxay inaan dib u soo celinno ayaan isku daynaa. waxaan nahay dugsiyaal adiga 4 dugsi ka kooban waxaan barnaa dadka sida qaabka baabuurka loo wato gaadiidka loo wato sida sharciga wadooyinka loo maro sida loola isticmaalo gaariga inuu wadada ka leeyahay in kale. inkastoo meel bannaan oo magaalada ka baxsan ama u gaar ah barashada gaadiidka aysan jirin haddana taasi waxa ay sii xoojinaysaa mashquulka wadooyinka oo hareeraha laamiyada Muqdisho waxaa lagu arkayaa gaadiidka la barayo qaabka loo kaxeeyo dadka oo adeegsanaya marinada waaweyn. hadda waxaan saaranahay mid kamid ah gawaarida lagu barto qaabka wadooyinka loo maro iyo sharciyada qofka haddana wada waxaana loo sheegay in mar inta uu noolaa uu gaari dhex fariistay iskuna dayay inuu wado waa markii labaad. waxaana loo sheegay in qatar badan aan la kulmi karno haddii ay taasi suura gashana ma dhici doonto inaan idiin sii dhamaystirno sheekadan laakiin haddii nolosheena iyo amnigeena uu sidan sii ahaado oo uu wanaagsanaado waan idiin sii warrami doonaa xaalku sida uu noqdana waan arki doonaa. Cabdullaahi Salaad oo kamid ah macallimiinta dadka bare gaadiidka qaabka loo wado ayaa ka hadlaya caqabadaha ku xeeran. caqabado ka walba waan la kulannaa oo dadka mataqaanaa annaga hadda dawladdu nama siin normal sharciyeed meel anagu aan ku barno laakiin maadaama annaga maamulkeen oo soo qaban qaabshay in loo baahan yahay xirfadan oo mataqaanaa annaga waxaan macallimiinta meeshaan wax ku barnaa baabuur badan meesha wax ku barnaa kambaniyaal kala badan oo badan aan nahay ilaa ay gaarayo afar kambani qaasadan aniga waxaan u shaqeeyaa safe driving and traffic school intaan ku shaqeynaa marka qaabkaas aan u bixinaa casharada. Cali Xirsi Barre Cali Gaab oo shuruucda wadooyinka bartay dhowr jeerna soo noqday taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ayaa ka warramaya sida ay u arkaan dadka bartay gaadiid kaxaynta iyo waxa lagala kulmo marka ay soo galaan marinada waaweyn. horta in baabuurta la barto qafa dhimanaya midaa dhaawacmaya midaa dalka toofiya horta gaadiidka in la barto waa lagu adeeganaya gaadiidka dugsiya furan iskoolada afuran laakiin ninkan darawalka waxa qadka sharciga saxda ah ku toosiya ninka aqoonta u leh sharciga oo traafiga hadduu qalad gala la garaaxa hadduu saad kala galo ilaa laga gaaro faraajada ugu daan malihid biyaha saariyaha baawarka baraadiisa malaha baawarka aqiiqu badan u leeyahay waxyaabo badan ayaa jira oo weli la gaarin hadda dariiqi caadiga ah koodidiisa u jira waxaa marka qadka ku soo ridi kara dadka noocaas ah waxaa macallimiin ka dhigi kara oo madaxooda hoos keeni kara nimanka sharciga loo xil saartay ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka ama taraafikada loo yaqaan. wadada sidan u mashquulka badan ee uusan ka shaqaynayn amarka ciidamada ilaalada wadooyinka waxaa jira dadweyne kale oo iyagu doonaya inay ku soo biiraan ciriirigan iyo gawaari wadista. waxay ka soo baxayaan goobaha lagu barto gawaarida ee magaalada Muqdisho ee sidoo kale magacyada kala duwan wata. على هذا المومن جورجو مقدشو.